wadada isku xirta isgoysyada Baarwax iyo Holwadaag ee magaalada Muqdisho oo dhawaan la saaray laami ayaa waxaa maanta howlo kormeer ah ku tagay gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho Mudane Xasan Maxamed Xuseen Mungaab oo ay weheliyaan mas'uuliyiin ka tirsan maamulka gobolka Banaadir. Ujeedada kormeerka gudoomiyaha gobolka Banaadir ayaa ahaa mid ugu kurgalayay laamiga la saaray wadadaasi isagoona mid u kormeeray goobaha ganacsi ee ku yaala suuqa Bakaaraha halkaas oo uu ka tukaamaysaday gudoomiyaha gobolka Banaadir kana xog wareystay xaaladooda ganacsi iyagoona u sheegay in aad ugu faraxsan yihiin dhismaha wadadaasi oo muddo fog aan helin wax dib u habeena. Gudoomiyaha degmada Holwadaag Axmed Nuur Cabdi Siyaad oo la hadlay warbaahinta ayaa gudoomiyaha gobolka Banaadir iyo xubnihii la socday ugu warbixiyay xaaladda suuqa Bakaaraha iyo dhismaha wadadaasi. mudane gudoomiye ku soo dhow laamigii ee aad dhagax dhigtay muddo bil ka hor ahayd maantana gabagabo inuu noo maray la soo gabagabeeyay kaliya ay noo harsan tahay qoditaan godkii aad ka faalloo doonto warbixinteeda rasmi aad hayso inaan maanta dhammaynay laamigii kilomitrka laga soo bilaabo isgooska Holwadaag ilaa isgooska Baarwax la geeyey si nabadgelyaan noogu dhammaaday lana shaqeynay shirkadii ka shaqeynaysay ee laamigan dhisaysay ganacsatadii guryaha lahaydna aan la hadalnay qarashkeena iska bixiyaan aan ku wargelinay ayagoona ay naga aqbaleen waji fiican nagu soo dhaweeyeen. gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho Mudane Xasan Maxamed Xuseen Mungaab oo warbaahinta kula hadlay agagaarka isgooska Baarwax ee magaalada Muqdisho ayaa sheegay in dawladda hoose xamar oo kaashanaysa ganacsatada suuqa ay ku guuleysteen in wada 1 kiiloomitir oo dhex marta suuqa Bakaaraha ay laami saareen. maanta halkan waxaan nimid waa kormeer bal laamiga la dhiso yahay inaan aragno ma aan xaraka jarista waa dhiman tahay maanta waxaan ku sameeynaynaa kormeer laamiga la dhiso yahay bal inaan qayfiirino iyo waxa ka dhiman waxaan dareemi karnaa biyo halkan markaan ku jiri jiray ilaahay ku roon yahay in xal loo helo halkaan markaan waxaan ka sameeynaynaa biyo mareen weyn oo casri ah meel gudahaas ku taalo bas waa dawladda hoose ay leedahay in halkaas ay biyo halkaan geli jiray halkaas ay geli doonaan laamiga marka sidoo nadiif doonaan nalalkan way ku soo xigaan hadii la yiraahdo kan waa laami rasmi ah dawladda hoose ee Muqdisho iyo ganacsatada Soomaaliyeed ay dhiseen ma ahan hadii la kuuray laami la dayactire ma ahan laami saaxiibada beesha caalamka ay nagu taageerta ma ahan waa laami Soomaali ay dhisanayso 25 sano ka bacd shacabka Muqdisho iyo ganacsatada reer Bakaara ay dhisanayaan dawladda hoose ay hormuud ka tahay markaan waana guulaha uu gaaray maamulka gobolka Banaadir maalmaha soo socdaan xariga laga jari doona hadii la yiraahdo. ganacsatada Soomaaliyeed ayaa bilaabay inay isku tashadaan isla markaana ay horumariyaan dhismaha dalkooda taasoo horseedaysa inay dib u soo laabato bilicda magaalada Muqdisho. Maxamed Xasan Cali, idaacadda telefishinka qaranka Soomaaliyeed, magaalada Muqdisho.